الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شناد إيه كتاب كني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخ قال لي هل كان معلومة ويجري والله تعالى يبتلي عبده إلهي أدونك وامتحامه wuxuuna mararka qaar loo imtixaamaa si uu u maqlo shakwadiisa bal u fiirso sheegashadaada in la maqlo tadarucaaga in la maqlo ducadaada in la maqlo inaad ducaysato rubamaa ibtalaahu liducaa yacni inuu ilaahay qofka imtixaano uu ibtileeyo si uu u ducaysto waa macluumo aada u cajab badan ogaada ducada faa'iidada ay leedahay inaad allah subxaanahu watacaala barido umuur hadday kugu dhacdo haddaad jiran tahay allah bari haddaad wax u baahan tahay adduunyo iyo waxyaabo kaloo allah bari haddaad u baahan tahay ilaahay inuu ku waafajiyo khayrka allah bari haddaad dooni ilaahay wax walba atadaruc waadducaa waliltijaa ila allah subxaanahu watacaala in isaga loo cararo qofka hadduu halmaamo ama uusan dadka qaar baaba inay ducaystaan dartood baa loo imtixaamaayo u fiirso waa macluumo aada runtii u cajab badan qofka in la imtixaamo sababta loo imtixaamina ay tahay bal ducadiisa in la maqlo oo ilaahay uu cararo waa arrin cajab badan weeye macluumada sheekhu wuxuu sheegay kitaabkii aan soo sheegnay badaa'ic altafsiir aljaamic lima fasarahu alimaamu ibnu lqayim raximahu llah waxaa jira oo kale sheekhu uu ka hadlay tashbiihu nakhlati bilmuslim geedka la yidhaha timirta waxaa lagu shabahay qofka muslimka ah yani rasuulka sal ly slm waa xadiis saxiix ahaa waa ku yidhi shajara ama geed ayaa jira ee lamid ah geedkaasoo qofka muslimka ah lamid ah yaa ii sheegaya buu yidhi marka saasoo asxaabta weydiiyey ninba meel buu ku dhuftay waxaad xusuusataan waxaa gartay cabdullaahi ibnu cabaas oo wiil yar ahaa ayaa sheegay oo gartay maalin maalmaha kamid oo magaalada wadankan anoo jooga maraykanka gobolka minnesota ayaan tegay marka caruur yaryar oo dugsi ah oo aada u tiro badan baan subaxii muxaadaro u qabanay oo la ii geeyey muxaadaraan u jeediyey marka waxaan weydiiyey su-aal waxyaabaha aniga go-in bay kamid tahay iyo wadamadan gaalada sida dadku de ay ku noqonayaan iyo ilmaheen iyo dadkeenu waxay indhahoodu qaban iyo waxay arkayaan iyo waxay baranayaan marka waxaan ku yidhi waxaa jira geed muslimka oo kale ah oo rasuulku sheegay marka geed micnaheeda fiican waaye keed u malaynaysaan marka jawaabtii igu naxdin badnayd waxay ahayd ilmihii qur-aanka baranayay markii jawaabtii u badnayd ay yidhaahdeen waa geedka christmaska shajaratu christmasku waa xilligan ciidda dadka gaalada ah oon muslimiinta ahayn bisha december ku timaada waxaa jira geed aad ku aragteen dadka adduunka safre iyo dee dadka wadamada gaalada jooga ay yaqaanaan dad badan soomaaliya joogayo waxba kama oga ama maba ayna arkinba geedkaasoo geed aada loo qurqurxiye ah waxyaabo nalal iyo ifaaya lagu xirxiray meel walba la dhigto guryihii baa la dhigtaa shaqooyinka la dhigtaa isbitaalada markaad soo gelayso meel walbood geli ayaad ku arg erboodyadii marka geedkaasi waa shajaratu christmas waa geed gaalada calaamad xilligaa ciidoodii u ah marka ilmahanagii waxay arkeen geedka la sharfaayo oo aada loo kolkolinayo oo loo weyneynayo inuu yahayba geedka isaga marka waxay dhahen geedaha ugu sharaf badan waa dabcan waxay dhahen waa geedka marka waxay noqotay arrin aada iyo aada noogu beertay murug in arrintaas ilmihii marka laga dhaadhiciyo oo loo sheego oo arrintaas iyada marka muslimka muxuu rasuulku ugu shabahay sala allahu calay wasalam geedka timirta waxaa la yidhaha waa likathrati khayriha geedkani wuu khayr badan yahay har buu leeyahay midhow leeyahay waqti dheer buu joogaa waxyaabo badan marka muslimkuna isaguna nacfigiisaa badan khayrkiisaa badan marka dhinaca labadooda la iskaga tashbiihinayay waa dhinacaas weeye wallah wuxuu yidhi ibnulqayim macluumadaas wuxuu sheekhu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha zaadu lmicaad fi hadyi khayri lcibaad
kitaabkaas ayuu ku sheegay. kitaab isaguna aada iyo aad dabcan u qiimo badan oo la yaqaana, taqriiban 8 mujallad ah. marka ayuu ku sheegay macluumada noocaas. ayib, wallahi in alcabda la yascubu calayhi macrifatu niyati. wuxuu kaluu sheekhu ka hadlay, uu ku dhaartay, weliba dhaar hormariyey. allah baan ku dhaartay, wuxuu yihi qofka waxaa dhib ku noqon inuu niyadiisa, camalka aada qabanayso niyadiisa inaad ogaato, yani dhib bay kugu tahay. sideebaa qofku niyaadkii dadka kale niyadoodii seed uga waramaysaa? yani dadkii qaar baa ummadii kale un la daba dhigay, oo hebel waxaas u jeeday, heblaaya waxaas u jeeday, anaa laysoo fiiriyey, anaa kan layulaha. yani ummadii niyadoodii buu rabaa inuu fasiro, isagaan garanaynin niyadiisii, oon waxba ka ogeyn. marka arrintaasna waa arrin qofka laga wacdinayo. qof bini aadamka marar badan in la nabadgeliyo ayaa arrintu isagu imaaneysaa. macluumada sheekhu isagana wuxuu ku sheegay kitaabkiisii miftaaxu daari sacaada. ilaahay subxaanahu watacaala hayna dhowro, qowlkeenna ha ilaaliyo, ficilkeenna ha ilaaliyo, niyadeennana ha ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.